بسم الله الرحمن الرحيم ومركل لي برنامجك حساب الله بقول شاكي شاكو يوم ذا كل كان نوع تلفزيون قرنك ومش كليا كتا وان كرتان كان لي سكرتان شاكوين كان كل جودي هاي بقول شاكي شاكو يحيسها كل كان يوم ذا شعاوة يوم ما أنت من كل ما ينو وأمد هذا حساب بدن sheekooyin kan yahay waa laba qaybood qaybta hore marka dhageysataan tagina si fadhiya ila jooga waxa dhashay sheeko kale oo aad u xiiso badan arintan iyo ducadeeni baan horeysiinaya waxaan leeyahay wax yar hadaad dul qaadataan qadar sabritaan yar adkaysataan alla leeyahay waan hubaa ina ha qabeeli doontaan isku jirisay iimaanka shaydaanka iska naara kulligiina dhageysta sheekooyinka hadda aan idin hayo iyo xiisaha madasheena iyo kulankeena waa boqol sheekiyo sheeko iyo mar kale iyo kulankeeni sheekada aan idin hayn mar dhoobo oo ka soo qaadi doono waa koobaad hal ku dhigeeda waxa la yahay Axmedow ha isku keen xanibin Axmedow ha isku keen xanibin arsaaqda ilaahay qof sidoo doon u siiyay si ikhtiyaarkeeda leh nin waqtigu hayo diifaysan oo bisaarsan xaaladdu ay ku adag tahay bisaarad labalaaban ku habsatay wax amal aan haynin magaalo meera oo maalinta wuxuu soo helaan ka badan labada xilli quraacdii qadada harakow joogtaa una makhaayad qura wax ka wada cuno la bartay oo makhaayada markuu soo galay fooda soo galiyaba mudalabku lamba hadlee wuxuu ilaahay harakowgii Axmed keena hadda u fiirsataan makhaayadahana inamada mutalabiinta ka shaqeeya waa inama aqli badan way bartaan dadka marka ay muddo wax ka cunaan makhaayada qof wuxuu cunay yaqaan ka isasaarka cuna ka bariiska kaliya cuna ka harakowga cuna ka cuna federationka mid walba way bartaan markuu soo fadhiisto iyagoo weydiinba ayay darbadaan way waxa la socdaan xaaladiisa nololeed iyo muuqaalkiisa haddii xitaa markaa uu cusub yahay waxay eegaan qaabka labiskiisa iyo diifta ka muuqatay siduu yahay dabeedna waxa u darbadaan wax isaga taalkiisa ninkan hadaba Axmed oo isagu ninka diifaysan bil amalka oo saxaad ku noola maanta iidiisu ay tahayna maanta saddex xilli wax cunaa dalkana aan aad u aqoon dadkii Kenya ku dhashay laakiin markoodii hore reer Somaliland aha oo aan dadkaba afgaranayno suju ay u yaqaaniin hatta hadduu dhex gal lahaana aan saa u garanayno dhibaato haysato ayaa inta yar helaa waxay ku ekaydba quraacda iyo qadada makhaayiro dan yar u tagi jiray oo harakowga ka cuno markuu soo fariisto waxba lama weydiin jirnay waxaan sheegay Axmed ahlan wa sahlan harakowgii waa loo darbadaa taasoo cuni jiray balbad buu hayaan yana sigaarka oo suuqul ku ahay oo inta badan xabad ama laba wiibsan jiray hadba maalintii helo ama saddex xabad maalintii oo dhan subaxda isagoo soo luudaya oo haysta intii harakowga iyo quraacdii ayaa intaan makhaayadii soo gaadhin wuxuu damcay inuu laba xabo sigaar dukaanka siibsado sigaarka tafaariiqda argan iibiyana wixii 10 xabo ka yar baakir kuma daraan 5 xabo 4 xabo waxa gacanta ku siiyaan laba xabo Axmed dalbaday labadii xabo markaa wuxuu ka baqay hadduu jeebka ku rido ishaarka ay kaga daato buurigu hadhow markuu meedhiyay shaarka quduu leeyahay ay kaga dhiiqdo oo shaarka uu ka xumaado labadii xabo soo gacanta ku hayo wadadii uu sii socday aagaagay bal hadda warqadu ku duuba ama baakir marno sigaar oo ku rito abaal markuu socdo arkay baakir maran baakirkii buu iska hubi waa intaas soo qaar baa jirad qaar baa andhuuf wax ku tufee yaan sigaarka ka xumaanay iskaag baakirkii hadduu furayba farxad buu dhaqaaqi kar waay dollar baa ku jira dollar Axmed xubnihiisii oo dhan baa wada qalalay farxad awgeed baakirkii buu soo jiiday mise waa $100 jircad ku dhici gaalayba $100 buu ugu celiyay baakirkii uu ka soo saaray haddana jeebkiisu ku ritay labadii meel sigaar haab ku riday de waxay ahayd inuu baafiyo laakiin nin baafinay waxa maanta ay kuba waajibtay ma baqtigaaba xalaal boqolkiisi wuxuu u qaatay wax ilaahay siiyo jeebkiisu iska gartay makhaayadii buu soo galay markuu soo fariistay waa inankii mutalabka inta saaga qoslay harakowgii Axmed والله هذا الطباخي أحمد بام مركايلي ماي ما أنت قلت هاي بير بقاسيول كسعة هركوي والبير إيه كان مركاسيول هذا كبير ولا أحمد وريسكو كان حنبين بير كم بحكرتي ما بير الله يسيو وهركوي قال وصيني يا بير كم بحكرتي سكته والله عقب هذا يستاير سيء ما تشرتلي هركو مركز دمو بقولك صوص هذا كسير كان وسيكسع بيركا ha isku keen xanibin dadka ha eegina jeebkooda ha ku eegina muuqaalkooda ilaahay tan yarta wax buu siin karaa sheekada hal ku dheeheed wuxuu ahaa ha isku keen xanibin
sheekadana labaad ha ka tegina iyo barnaamijkeennii boqol sheekiyo sheeko iyo xiisaha kulankeenna iyo maanta iyo madasheenna oo ah telefishinka qaranka iyo meesha qura si toosa uga daawan karto sheekooyinkan waan ku leeyahay ha ka dhaqaaqin xiisahaaga nin waa kii qowl leh waa sheekada halkudhigeeda hadda aynu hayno nin waa kii qowl leh waxaa jira daawadaya dad faduuliyaa jiroo badan oo dadka la murmaa muranku sidiisana ma fiicnaba qofba qofu imanayo leeyahay mise jir baa tahay waa su-aal qallafsan qof weynoo isagu intaa leeg inaad tahay mise jir baa tahay haddii aad su-aashabase hadduu kuu sheegay inaad la sii murantaa dee waa qalad mar haddaan weyn meesha ku dhashay iyo xaaladiisa nolol iyo taariikhdu dhashay nin haddaba la odhan jiray juxaa oo dalalka carabta lagu sheega had iyo jeer kuna badnaa dalkaa shaam iyo ciraaq iyo ayaa wuxuu ahaa nin dadka ka qosliyo kaftan badan laba sheekaynu maanta ka tuuri doonaa isku sheeko ah sheekadiisaa hore waxaa layahaa nin qowl labaad nin baa maalin weydiiyey markaa uu yidhi mise jir baa tahay juxow markaasuu yidhi 35 jir ninkii isagoo la yaaban markaa muuqaal ahaanna uu kala weynaaday ayuu ka xishooday inuu yahay bal wax ku daray waxba uu iskaga tegay tobaneeyo sano kadib ayuu haddana juxal la kulmay isagoo arrintii hubinaya ayuu ku waariya juxo mise jir baa tahay markaasuu yidhi 35 bili iima dheera ninkii yaaban oo qosliyo wala ku been badana meel xusuusnayd ayaa ka dhaqaaqay dhowr sanood kadib haddana ayay kulmeen markaasuu juxo mise jir baa tahay markaasuu yidhi 35 ninkii baa xanaaqay war daalmiyo beenaali 10 sanood ka hor ayaan maalin kulannay masad igu tiri waxaan jiraa 35 haddana 3 sanood ka hor baynu kulannay waxaad igu tiri 35 baa jiraa maantana waxaad leeyahay 35 baa jiraa miyaad garanayaan aniga yahay mas-uul ma xaqiiqo wax ku garanayaa sidaad sheegaysaana waa dhab intaba aan la kulmin oo maxaad saabladay meedni weynoo ilaahay ka baqayn maad run sheegtay mas-uul ninku waa inuu qowl yeeshaa ereyga aan ku idhi 100 sanood kadib haddaad ii timaadana bedeli maayo qowl nin ka dhacay waa geed qolofi ka dhacday 35 kaygaasaan taagnaanaya nin qowl leh nin qowl labaad anideera raaciya ninkaa juxaliyo ayaa maalin alaabba ka luntay alaab ayaa ka luntay alaabta markii luntay ayaa aqali hore wuxuu degan yahay cariisha goor fiidaa la arkay juxo oo aqalka hortiisii baaraya oo ciiddii rogay oo mafiiq soo qaatay oo faraley oo suuq baarad yaabso siiga meel meesha ka dhigay dad baa ugu mooyiri war juxa maxaa ka lumay markaasuu waxoogaa yar lacag waan haysto qadaadiica ayaga luntay oo xaggee kaaga dhacday warsu cariishka gudihiisa oo haddaa maxaad bannaanka u baaraysaa be sodigan bannaankaad baaraysaa soo cariishku waa madow bannaankaa iftiina waa boqol sheekiyo sheeko iyo madasha xiisaha sheekooyinkeenna iyo telefishinka qaranka oo anigoo idin leha ilaamina ballanteenna xusuusnaada kulankeena